السلام عليكم صاحب يال waxaan idin ka raali gelinayaa inaan horay ugu soo boodnay qisadii Nabi Lut maadaama Nabi Lut uu ku soo xigay Nabi Ibrahim ayna ahaayeen kuwa isku xili ah uuna dhalay walaalkiisa Nabi Lut waa nabiga toddobaad waxaana la dhahaa Lut bin Haran waxaana loo soo diray qoom la yiraahdo reer Saduum qisadiisa waa qiso ka mid ah qisaska lagu sheegay Qur'aanka Kariimka qoomkiisana waxa ay ku xaanbixeen dambiyo culculus gaar ahaan u takrifilida alle iyo xumaanta galmada oo ragga dhexdooda ah macnaha rag u tagayo Nabi Lut waxa uu isku dayay in uu qoomkiisa waaniyo hadalkiisana waxba kama aysan soo qaadin oo waa ay diideen allana waxa uu u soo diray 3 malaa'ig inta aysan malaa'igtaas u imaanin Nabi Lut waxa ay bishaaro u wadeen Nabi Ibrahim iyagoo ugu bishaareynayay wiilkiisa Isxaaq maadaama ay markaas Nabi Ibrahim iyo xaaskiisa ay ahaayeen u waayeela ah horayna waan idinkugu soo sheegay qisadii Nabi Ibrahim markii ay u bishaareynayeen Nabi Ibrahim waxayna si maldahan ugu sheegeen Nabi Ibrahim malaa'igtii in la halaagi doono qoomkii Nabi Lut waxa ayna soo aadeen dhanka iyo Nabi Lut iyagoo rag safare iska soo dhigay 3 malaa'ig ee uu alla u soo diray in ay soo ciqaabaan qoomkii Saduum qoomkii Nabi Lut waxa ay ku dhaqmayeen xumaan iyo waxyaabo aad u foolxun kuwaasi aysan hore ugu dhicin bulshada kale dhexdeeda waxayna ku dhaqmi jireen falal foolxun aysan u baahneen sida galmo xun oo dhaxmarta ragga dhexdooda waxayna dhibaatooyin kale oo farabadan u geysan jireen dadka safarka ah iyo bulshada inteeda kale Nabi Lut ayaa u digay qoomkiisa isagoo ku waaniyay in ay ka toobad keenaan falkooda foosha xun ayna u laabtaan alle laakiin badankoodu ma aysan maqlin digniintiisa waa ayna ka soo horjeesteen iyagoo sii watay dambiyadoodii markii ay malaa'igtii iska soo dhigeen dad bini'aadin ah ayna soo gaareen dhulkii uu ku noolaa Nabi Lut waxa ay arkeen gabadhii Nabi Lut oo biyo u dhaaminayso guriga Nabi Lutna waxa uu dhalay 2 gabar waxa ay ahaayeen kuwa dhowrsan oo akhlaaq badan gabadhii ayay weydiisteen meel ay ku hoodaan waxa ayna u sheegtay in aabaheed Lut ay u weydiin doonto meel ay seexdaan kadibna jawaab ay u keeni doonto waxa ay aaday gabadhii dhanka aabaheed waxa ayna u sheegtay raggii xaalkooda Nabi Lut ayaa ku amray gabadhiisa in ay soo bado nimankii uuna siin doono meel ay ku hooydaan markii ay malaa'igtii oo dadka caadiga iska soo dhigay ee imaadeen gurigii waa la marti qaaday laakiin Nabi Lut naagtiisa ayaa baxday oo qoomkii u soo sheegtay in Nabi Lut gurigiisa ay joogaan rag qurux badan oo na safarey ah isagana uu ku qarinayo iyaga reer Saduum intay soo baxeen ayaa isku dayeen in ay raggii ay kufsadaan malaa'igtii ayaa u sheegay Nabi Lut in ay yihiin malaa'ig uuna alla soo diray si uu u ciqaabo qoomkiisa kadib malaa'igtii waxa ay ku amreen Nabi Lut isaga iyo qoyskiisa ee inta alla raacday in ay ka baxaan magaalada marka laga reebo xaaskiisa oo kaafirad ahayd kadib aroortii ayaa la ciqaabay reer Saduum iyagoo tuuladii kor loo qaaday kadibna dhulka lagu soo daayay ayadoo dabagedisan xaaskii Nabi Lutna dhagax ayaa kor ugu yimid waxa uuna ugu dhacay dhanka iyo madaxa waxaana soo daayay roob dhagaxyo waaweyn wata sidaasna waxa lagu ciqaabay qoomkii qoom Lutka ahaa hadii aadan muuqaalka like saarin isku day inaad like saarto